هو الحب يا الله في داخل كان وحال امتحانا قفك كلية وإلهي جل وعلا جعلها محايا نبينا محمد صلى الله عليه أفضل السلام وأزكى التسليم ولويدي يا ددك أو امتحان بدن بالغيري adiga in uu imtixaan badan taas ku malaysaa maanta fahan ayuu u baahan yahay imtixaankani hanuun iyo ilaahay jalla wa ala oo la tala saarto oo tawfiiqdiisa ayuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay u hoggaansamid oo hoggaansamaysid xataa waxaadan u jeedin oo u hoggaansamaysaa waa aaminaysaa waa jeclaanaysaa waxay ka mid tahay imtixaanka bini'aadanka la imtixaanayo lowlaa haddaanan fahmaynin xataa anaka waa inaan u hoggaansamnaa marka bini'aadanka wuxuu u malaya inuu koodsoomay inuu ilaahay u baahnayn ayuu isku malayaa laajli dalika marka imtixaankan walaalayaal waa imtixaan rabbaani ah imtixaankii kale aan ka soo hadlay waa ka duwan yahay kan imtixaankan qofkii fahmaa nolosha dhan ayuu fahmay imtixaankan qofkii fahmaa qanaaco ayuu helayaa imtixaankan qofkii holaa waa qof kalsooni cilmi caqli iyo ma aragtay firfircooni iyo طمأنينة iyo sabar u saaxiibka بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد walaalahayga aad iyo aadka u jeclahay ee la socda barnaamijkeenii ahaa BKD ama backaada baro ku dhaqan diintaada waa qaybtiisii toddobaad aan uga hadli doono insha Allah biidhnaahi alkariim imtixaanka qaybtiisii kale imtixaankii hore ee qaybta xalaqadii lixaad aan kusoo qaadanay walaalayaal mid waxaan u malaynayaa inaad soo fahanteen waxyaalo badan oo waxaa ku jira u baahan fahan caqli maskax inaad isticmaasho u baahan ah sababta walaalayaal waxaad ogsoonta ilaahay jalla wa ala maskaxdaani caqliga wuxuu inoo siiyey sidaan uga fikirnaa sidaas darteed ayaa qaybtana ka hadli doono ayaa waxay qaas u noqonaysaa kaliya dadka muslimiinta walaa gaala shuqul ku lahayn walaa munaafiqana shuqul ku lahayn walaa qof kale oo falsafa iyo walaa balaayo kale maskaxda uga jirto aana shaqo ku lahayn waxay qusaysaa dadka muslimiinta ah oo ilaahay jalla wa ala kali ku xiran oo soo fahmay qaybihii hore sababta tawxiidkan ka soo hadlay la ilaaha illa allah ka soo hadlay muhammadur rasuulullah ka soo hadlay diinta islaamka ka soo hadlay ducada iyo khayrka iyo allah barida aan ka soo hadlay imtixaanka marka fahankiisa waxay u baahan tahay intaas inaad dhabarka ku haysataa intaas ilaahay jalla wa ala nabigeena sallallahu alayhi wasallam barashadiisa diinta islaamka barashadeeda inaad ma aragtay qalbiga ku haysataa markaas ayaa ma aragtay markaas ayaad fahmi doontaa qaybtan imtixaankan rasmiga ah ee loogu talagalay oo kaliya dadka ilaahay jalla wa ala uu ku tilmaamay أولئك هم أولو الألباب وادتك عقلك أصاحبك وادتك قرشة أصاحبك وادتك فهمك أصاحبك وادتك أوه قانسمي إلهي جل وعلا أوه قانسمايو بإذن الله الكريم نعم ولا ليال وحان كسو هذا الله امتحانك عن سوقي احنا وحو يهي عن كسو هذا الله قيبتنا وحان هذا ولا ليال امتحان كلا امتحان كان كلا ولا ليال بن آدمك وكو أذنك يحي وامتحان رباني وامتحان إلهي جل وعلا حقيسة كإماضي إنه كو أذبجه أي وحا قرانيسا ولا ليال ضدك إنتو بدن ومهو قام سمان ولا ليال قال ضاني بدنا مركا لا دوديسيد أما دين تأصل بنيسيد أما دون كان إياه سدو كو إماضي أوداني أتكل هليسيد ولا ليال وحي بدنا استعمالان يعني وحيالك كسور جيدو إلهي جل وعلا أرنتو الرب إنه أنك نوصو بندقو إن أسكري لعابدو إن دين الإسلام كله قانسمو إن سعسلا له قانسمو إيكو حرّوان وكلي ولا ليال إن أي دهان أرن كاني ساسي ما أها إن أيك اسمه مولان سهدا ساق حلقة دي هرؤوسو الشيء إن أيك اسمه مولان الروان إن أيك ما أركتي قوانين تدجستان الروان إن أيك ما أركتي قابك أنو لان لها دجستان الروان ما بربان لن إني قف كلا أما وح كلا أما أريما كلا أوه قانسمو صوبته وحيسكو ملايان إن أي ما أركتي ككل تسومي كرا أرنكا حيسكو ملايان إن أي ما أركتي كمارمان أرنكا أجل ذلك إلهي جل وعلا وحكول لي في سورة العلق وإقرأ باسم ربك الذي خلق إلهك وحكول لي إلهي جل وعلا وحوليهم كلا إن الإنسان لا يضغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعة بالآدم كأحومنا إنه كود سومي إنه إلهي أباهنين أي أسكم ليال لأجل ذلك مركا امتحان كان ولا ليال وامتحان رباني امتحان كي كرا كسو هالله وكدوان يهي كان
imtixaankan qofkii fahmaa nolosha dhan ayuu fahmaa imtixaankan qofkii fahmaa qanaaco ayuu helayaa imtixaankan qofkii holaa waa qof kalsooni cilmi caqli iyo ma aragtay firfircooni iyo tumaniina iyo sabr u saaxiib dalika qofkii ku kodsooma imtixaanka adduunka ah mala awaalka iska ah waxyaalahan qaar imtixaanaadka bini'aadamka barmarayaan iyo kan isku mid ma aha imtixaankan wuxuu 100% soo koobaya sababta lagu abuuray maxaa yeelay ilaahi jalla wa ala quraankiisu wuxuu inoo sheegay arimo badan ilaahi jalla wa ala wuxuu yiri wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun jinni iyo insi umaanan abuurin wax kale illa inay yaabudaan ma ahan jinni iyo insi umaanan abuurin illa inay yaabudaan ma ahan kow waa imtixaankaas lagu abuuray ilaahi caabud hada ilaahi caabud maxaa dhacay janna ayaad helaysaa raali ahaansho ayaad helaysaa wanaag ayaad helaysaa haddaadan caabudinna maxaa dhacayo cadaabtiisa iyo ciqaabtiisa ayaa helaysaa sidaas darteed ayaa waxaan tusaale uga soo qaatay barnaamijkana aan usoo bandhigay baro ku dhaqan diintaada inay noqoto arin ilaahi jalla wa ala uu ma aragtay aad ka baryaysid laakiin garashadaadii cilmigaadii iyo ma aragtay aqoontaada aad ilaahi jalla wa ala aad ku caabudaysid maxaa yeelay tusaalahan soo qaatay waxay tahay videogan aan kusoo qaatay Soomaaliya kusoo qaatay tusaale haddan ka imaado Soomaaliya February la soo dhaafay Soomaaliya ka imaaday aniga saayidii soo sheegay quraanka markii la soo barayay ilaa hadda ma arkin qof loo sharxayo maalinta ugu horeysa oo la dhahayo quraanka hadaa baratid waxaas helaysa hadaadan barin waxaas helaysa sidaas tusaale uga soo qaato ilmaha dugsiga way nacayaan ee ku dugsiga wanaag u yahay maxay u nacayaan waxay tahay lagama dhaadhiciyo si aqligooda iyo maskaxdooda looga maaragta dhaadhiciyo tusaale idin siinaya wadanka Sweden aan ku noolahay iyo wadamada Yurubta wadamada America ardayda maxaysan iskuulka uga cararin waxa iskuulka ardayda ka carada waa yar yihiin inta iskuulka dhigato ayaa ka tiro badan Soomaaliya markaad fiirisaan inta iskuulka dhigato iyo inta ka cararaysa hadii la fiiriyo inta ka cararaysa badan saas ay tahay quraanka waa la xifdisiyaa awooda lagu xifdisiyaa quwad ayaa lagu xifdisiyaa kartiya lagu xifdisiyaa ula lagu xifdisiyaa laguma xifdisiyo raxma iyo wanaag iyo qanaaca iyo qofka asaga jeclaado sidaas darteed ayaa waxaas arintaas saameyn ugu yeelanaysa walaalayaal qofka xaafid quraanka aha kabiirka soo aha quraanka soo xifdiyay soo markuu soo tahriibo oo tahriibku soo galo oo Yurubta imaado muxuu ma aragtay isku bedela waxa uu la jeedaa marka barasho markii la dheeyahay walaalayaal barashada ma aha kaliya in qasab qofku wax lagu baraa ilaahi jalla wa ala markuu insaanka usoo dejiyay kitaabka ilaahi jalla wa ala wuxuu yiri kitaabkan wuxuu wataa hudan wa shifaa kadhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin ilaahi jalla wa ala wuxuu yiri kitaabka wuxuu ku tilmaamay nuur inuu yahay maxaa yeelay walaaleen waa sax weeyaan qalbiga bil aadanka nuurkaas inuu u galo ayaa la rabaa si cilmiyeysan maskaxaysan dagan ma aha dil ma aha ul ma aha yani karti in loo adeegsado karti mar imaanaysa karti waxay imaanaysaa markii loo isticmaala kartida quraanka oo ilaahi jalla wa ala quraankiisa ku mar way jirtaa ilaahi jalla wa ala nagu barbaarina taas waa ilaahi xaqiisa ka imaaday laakiin waxa loo jeedaa markuu qofka diinta la barayo in lagu baraa si raxmad leh si qofka looga dhaadhiciya asoonan la dilin iskuulada fiiri lama dilo dadka iskuuladan laakiin waa laga dhaadhiciya wuxuu soo baxayaa asoo isku tashan asoo cilmiga jecel fahansan يعني سي عقليسن مسكحيسن اسغنا ديب كينينين معالكنا ديب كينينين والدكيسن ديب كينينين ديننا ماشي كايمانينين ايا ilmaha la bara marka ala kulli xaal waxa soo koob ana hadan soo koobo walaalyaal waxaan ula jeedaa fahanka imtixaanka nolosha saxda ah waa midka ilaahi jalla wa ala uu kugu toosiyaa fahankiisa ko labo waa midka adiga aad qaadataa oo aad ma aragtay go'aan ku gaartaa in imtixaankaasi saad uga badbaadi lahayd aad يعني يولكيدا iyo dadaalkeeda aad gasha maxaa yeelay walaalayaal ilaahi wuxuu leeyahay afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un ilaahi wuxuu leeyahay hasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ilaahi jalla wa ala marka walaalayaal una imtixaanaya alladhi khalaqa al-mauta والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور امتحانكي هوري
imtixaankan wuxuu uga adag yahay waxay tahay imtixaankan wuxuu ka imaanayaa awood ay qasab nagu tahay inaan aaminaa, awood ruuxdeena dareenkeeda la socoto, caqligeeda la socoto, yacni bilaadanka yacni cafiifnimadooda iyo dhowrsanaantooda iyo ma aragtay fitrada bilaadanka ayay la socotaa. لأجل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ayaa wuxuu yiri qofka markuu dhalanayo wuxuu ku dhashaa asoo muslim ah, asoo gaal ah ma dhashto. qof bilaadan ah oo gaalnimo ku dhalanayo ma jiro. taasaa marka waxay ii keentay inaa walaalahayga aan jeclahay, ilaahay dartiis u jeclahay, inaan la qaybsadaa imtixaanka ku adag aysan ku toosnayn, aysan u hoggaansamaynin, aysan xiisaynaynin, aysan يعني ما أركتي قدبينين أي دتك وعي قلينين فهن أيو أباهن هاي امتحان كاني هنون يو إلهي جل وعلا ولا تلصارت أو توفيق ليس أيو أباهن هاي وحو أباهن هاي وهو قان سميد أو هو قان سميسيد حتى واحد الأجيدين وهو قان سميسا وآمنيسا وجعلانيسا وحكمت هاي امتحانك بالآدم كالامتحان هاي لولا هدانا نفهمين حتى عنك وإن أنه كان سنة هذا فهمين وحاول جيدة صالحان ما ننت يوم القيامة سيدا وقتها ما قرانينه سيدا وقتها ما وجدنا هذا أنك ما قرانينه وحاول جيدة طبعا ما ننت يوم القيامة موجودة هذا موجودة هورين موسو أركتي وامي وعلم الغيب ويان لكن ولا قوت المامي ولا قوت شيء ولا قبري ولا قاعد أدعي ولا قوت سودجي ها ما ننت يوم القيامة إلهي جل وعلا وحليه ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. آمنا ما نتصل يوم القيامة وين قرصنتها هاي لكن وإنا آمنا سيدس أيان أقد منها هي قال ما آمن سنة كمان نتصل يوم القيامة. امتحانك مركب كل عام لكن امتحانك كباسي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر هو الذي يعني امتحانك كباسي ويان قفك آمن سن إلهي جل وعلا ما نتصل يوم القيامة آمن سن. امتحانك الوحو قد وين هاي امتحانك waxaan looga baahan yahay in lagu tarbiyeeyaa in awood aanan u jeedin, awood naga sarreysa inaan aaminaa, qasabeena nagu tahay inaan aaminaa. maxaa yeelay xaq weeyaan. xaqaas wuu soo baxayaa maalin maalmaha kamid ayuu soo baxayaa, maalin maalmaha kamid ayuu soo baxayaa. taasna 100% annaka waa aaminsanna haddaanu nahay muslimiin. awoodda naga sarreyso oo cilmiga iyo quwadda iyo awoodda iyo xikmadda leh awooddaasi ilaahay jalla wacala ay u sugnaatay. ilaahay jalla wacala ayay u sugnaatay. yucizzu man yashaa ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مضويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم إلهي جل وعلا أوديس قوديسا لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. امتحانكم امتحانا وإن كان سما حتى هدي نفسدكو أدكتهاي، حتى هديكو أدكتهاي يعني طبيعي بالآدنك وإنها رمينا محايا لي ولا ليال بالآدنك سيدي سبب وحاوايا وحيالا بدنكو أدكايا جرا. لكن سؤاشا ماشي طالع وحي جرتو امتحان كان وحالا امتحانا قفك كلية وإلهي جل وعلا جعليه. محايا لي نبينا محمد صلى الله عليه أفضل السلام وأزكى التسنيم ولويدي يا ددك او امتحان بدن باليري adiga in uu imtixaan badan taas ku malaysa maanta waxa u malaysaa ilma la'aan, caruur la'aan, lacag la'aan, shaqo la'aan, imtixaan, cudur, waxyaalo badan in lagu imtixaan uma leynaysido. qofka adduunka ugu imtixaanka badan inaad tahay uma leynaysido. waa laga imtixaan badnaa oo waa laga imtixaan badan yahay oo waa lagaana imtixaan badnaan doona. maxaa yeelay allah jalla wa ala awoodiisa ayuu بالآدنك كل درتين نبينا محمد عليه أفضل السلام وأزكى التسليم ولا ويديه يا أول امتحان بدن أيالا يري مركزو يري الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أنبياء أول امتحان أنبياء إني أول امتحان بديهين إني إلهي جل وعلا امتحانكو امتحاني دتك كرؤوس امتحانين أيان إذين لقب سندونا قيبتا سديدات إن شاء الله هدو الله جل وعلا أوديسا علميسا قوديسا توفيقيسا يوافجيو قيبت سيديدات أيان وحالله دادك أوغي امتحان بدن امتحانك معانكيسا
markuu allah jalla wacala ka imaado imtixaanka macaankiisa markuu allah jalla wacala ka imaado iyo si anaga u fahano inay kala duwan tahay ayaa idin sheegaya allah الرحمن الرحيم الملك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا إلهي جل وعلا قرآن سكيري وجزاكم الله خيرا امتحانكو ويريحي امتحانكو وفذديحي وحكدرا قفكي عاسية امتحان كاني وحكدرا قفكي كسهر جستا امتحان كاسي إلهي جل وعلا ما ننتاس أيوب ضدك فهنسين دونا وما ننت يوم القيامة يا أبا هنهي إن آمنوا نقول امتحان إلهي نوفض ذيو وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته